joogna waa Laasgalool waa meesha shir uu ka socdo shirweynaha Axmed Faarax Biciide sababta shirka loogu qabtay waxa kamid ah quruxda iyo nimcada taala goobtan waa goob la ilaaliyaa waa dhulka la daryeelaa ee la ilaaliyaa in la garaaco iyo in la gubo iyo in la jimindaabiyo intaba laga ilaaliyaa kulli taariikhda sidaan ku hayo beesha Axmed Faarax weyne muddo 55 sano ka hor bay ku tashatay tashigaas oo marka Muuse Abakorba ama Faarax Biciide ama Barhaad Raxmaan taladii ay ku meel mareen mara fara badan uga soo baxeen maanta insha Allah sidii oo kale baa laga rajeynayaa in wax habar jeclo baa anfaca ay ka soo baxaan Somaliland ilaas dhagax bay ahayd waa goobihii xilligii dawladii gumaystuhu iyo afweyne ay ka gudbi jirtay meel halkan la galciida dagaal baa ka dhacay laas dhagax meesha la yiraahdo dagaal baa ka dhacay dhulkii xilliga dadku ku baxsanayeen bay kamid ahayd dhulkii aanay soo gaarin in dadka lagu xasuuqo dadkii iskurkooyinka lagu dilaaciyay bay ahayd shacabku aanay soo gaarin bay ahayd ee shacabku ku dagaalamay ee laga difaacay dadkii shacabka ah ee yaalay dadkii joogana ay ku dagaalameen cidda difaacaysa markaa ma ku dagaalamaysa waxay ahayd beelahan beesha Axmed Faarax ama Biciide bay ahayd taariikhdooda deegaan ahaan waa dhulka u khaaska ah xilliyada wax dhacaan Somaliland ama qayb ahaan Biciide waana dhul istiraatiiji ah xagan hadii laga sii kaco buurihii baa xiga oo tawagan ka yimaadeen kuwa sii xiga beeyadii baa sii xigta xagan banaankii iyo dhulkii laamiga maraya baa xigta istiraatiiji ahaan waxaan oran karaa waa dhulka ugu caalamisan Somaliland kusugnahay waa Laasgalool cilafana ay waxay kaga bagan tahay dhanka galbeedka qadar 20 kilomitir area halkan waxa ka socda sidii aad wada ogtihiin beeshir weyne ay leedahay beesha Axmed Faarax Biciide shirweynaha soo magaciisa leedahay urusha 1 insha Allah waxa ku xigi doona urusha 2 oo loo qaban doono ama lagaga dhawaaqo doono xafladda oo loo qaban doono beelaha bariga habar jeclo inta marka ka yimaado Laasgalool waxay caan ku tahay ama ay ka mid tahay goobaha dalxiiska ama goobaha bilicda waa aragtaan maanta quruxdeeda intiina daawatay waa aragteen intiina aragtayna waaba waxba yan ciidii ka warramayso oo meel xagga jawiga iyo xagga cimilo ahaan iyo xagga qurux ahaanba u mudan goobaha laga tago gobolka Sanaag sidoo kale waxay caan ku tahay xoolo daaqsimo ama daaqsin dhuleed bay caan ku tahay iyada oo xoolaha meesinkooda kala nooc ah ay mid waliba uu ku gali karo si gaar ah ugu gali karo geel uu ku gali karo sidoo kale iduna ay ku gali karaan lo'da iyo riyuuna ay ku gali karaan taariikhda wixii hore saaxiibkiiba ka soo sheekeeyay oo waxaan u maleynayaa halkaas inaan taariikh ku noqdo u baahnayn waa meel xagga dhifayska iyo ku badbaadistana aad iyo aad runtii ugu wanaagsan sida uu ka soo sheekeynaya saaxiibkay waqtiyadii hore waa meel wax badan lagu xasuusan karaa run ahaantii reerkuna waxa uu ku doortay waxyaabaha waxa kamid ah shirar hore oo lagu qabto lagu caanamaalay loogu tashaday xagga nabadda loogu tashaday xagga wax iska celinta loogu tashaday maxaanada xagga deegaanka iyo dhul deegsimaadka runtii intaba waa meel aad iyo aad ugu sidata sida maanta loo doortay asaas iyo salamida in lagu xuso wixii hore dibna loo soo nooleeyo deegaankeedii iyo degsiimadeediiba dib loo soo badan ka taabto xagga biyaha deegaanka waad aragteen biyo way qulqulayaan biyo leedahay waxay kaloo leedahay ceelal maguuraana oo run ahaantii aan gurin abaar iyo jiilal toona sidoo kale waxay dacalka ku haysaa xijigii sida beeyada maydiga iyo maxarka oo kale sidoo kale waxay ku dhex taalba oo iyana cirifka u saaran malmaladii marka gobolka Sanaag wuxuu caan ku yahay xiji wax la yiraahdo marka waa meel qariib ku ah u dhow xijigina waa meel u dhow oo qofka xijiga gurta iyo xoolaha labadaba waa meel labaduba ay isugu karaan marka xagga biyana waa biyaha waa meel ka xaqabla oo wadarka sansada reermiga iyo xooluhu ugu xirxiran yihiin oo xulna meel biyo joogan marka barwaaqada laga tago waqtiyada barwaaqadana waa meel sanad hore idin soo sheegay ugu quruxda badan goobaha loo tago dalxiiska ama
deegaanka ceelafweyn u yimaadaan ama dadka gobollada uga soo dalxiis tagaa u yimaadaan run ahaantii waa meel xag kastoo loo eego xag xiji iyo xag xoolaad duurjoogtii aanay dhulkaba joogin ama ay kuba yar tahay gebi ahaan haddana waxaan oran karaa waa dhulka ugu sii badan ee ama deeradda ku sii hadhay ama garanuugta ku sii hadhay ama beesha Axmed Faarax Weyne ee Urursha meeshuna waxay asalkeedii ahaan jirtay waa meel dooxa waa meel haddii ay baxun maayay geedka gobka galoolka darayga intuba ay ka baxaan waa meel daristeeda quruxda aragtaan waa meel biyaheedu ay ku daraan karamaan meesha la yiraahdo ee banka waa meel xoolo galeen ah oo xoolo galaan geela anigu geel baan ku raaci jiray oo halkan geedka bardaa waan ku hisi jiray waa meesha uu xilliga adag geelu galo yaa waxay leedahay biyo la qoday oo qodaal ah ayay leedahay marka meeshan asal askul bayada waxa weeye waa meel caalamiya waa meel u qalanta shirka lagu qabtay waa meel dooxadan waa Laskalool waa meesha uu ka dhacayo shirkii Urursha Axmed Faarax Biciide weli waa taargadii waa taagan tahayba runtii ninkan way ka badiyay isagu wuxuu yiri arigan ku raaci jiray iyo ka waraabin jiray buu yiri iyo geelaba laakiin anigu horta ariga geeltoona kuma raacin laakiin inuu ilaa waan ku daraya horta dooxadana waxa u dhaxaysaa magaalada Fadhigaab iyo magaalada Ceelifeen bay u dhaxaysaa xaggan waxa ka xiga magaalada Ceelnimcoon xagga dambena waxa ka xigta magaalada Laastomaare deegaan ahaan xaggan waxa ka xiga Allahu musta'aan Quraar Kiira iyo Bariyo Guduudi iyo Xarqacal Nuux xaggan dawac sugul baa ka xiga iyo Dirdin iyo Laas Dhagax xaggan Qeyla Dheer baa ka xigta anigu ariga ku iibsan jiray iyadoo kaamaho xoolo lagu iibinaya niman jiray xoolahan ku iibsan jiray dawa meesha uun wax kale kuma garatide deegaankii dhammaan laga soo xushay ee looga maarmi waayay in shirka lagu qabto istiraatiiji ahaan qurux ahaan har ahaan biyo ahaan baad ahaan intaba marka waxa weeyaan insha Allah waxaan u maleynayaa kulli shirar fara badan horena waa lagu qaban jiray oo beeshu leedahay insha Allah kuwa dambe iyo kuwa mataqaana hadda lagu baaqay beelweentaba in lagu qaban doono insha Allah baan rajeynaya